آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعنا وناكسن إذا الكيمبا ملكستو عاد نقدر هنيسان ومركله إيو برنامج كاني سعودالك عقد حاجي إيو دبي إيو تلفزيون كعالمي جاء يونيفرسال يلا أنت بدن أنا لك ولا نو بعشرة كلا دوان الصومالية ده كوبا سند على أدونك سي كاميرا ده يونيفرسال أدوكده هتان أما أدواركتان مرول با وحيابه يقدم به يسد وحيهين يقابك أي وحو سعودان هذا با شركة ده دنا عضو لماذا دي تكلا ده اللي جم عابو فرقان ترافل وحي كمتهاي شركة ده هواوين وإليهين ضدك الصوماليات فريق ده وين وحو كويا لمجال برمنهام أو مجال مدحت اللبات أو وطن كابريتان waxaa shirkadaasi ay tahay mid u qidmaysa bulshada Soomaaliyeed iyo waliba dadka kaleba ee iyagu markaasi la soo xiriira ujeedada ugu weynina ay tahay inay mar walba ay u qabtaan hawsha ay dadku u baahan yihiin haddii ay tahay dhinaca geynta cumrada iyo waliba xajka dhulka barakaysan iyo haday tahay u khidmeynta dhinaca duulimaadyada iyo tikadhada kala duwan ee dacallada adduunka Cabdiwali waxa uu yahay maamulaha iyo mulkiilaha shirkadda oo fadhigeedu yahay Birmingham balse fursadaan u helay inaan kula kulmo magaalada Dubai ee dalka Istaga Imaaraadka Carabta maruu u yimid howlo shaqo ah marka hore socdaalka kaamirada iyo telefishinka caalamiga Universal iyo Cagta Xaaji ayaa soo dhaweynaya Cabdiwali waxaan se weydiiyay Furqaan Travel maadaama ay tahay hay'ad ama shirkad aad u ballaaran goorma markii ugu horeysay ay ahayd ee la aasaasay maxaase kalifay in la aasaaso bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore waxaan aad u salaamaya bahda Universal iyo Cagmadhiga iyo maaragtay studio Universal oo ku yaala magaalada London iyo adduunka meel kasta oo ku yaalo Cagmadhiga hadii aan wax yar aan dul maro qaabka loo aasaasay shirkaddan Furqaan Travel sababaha loo aasaasay waxay ka mid ahayd in baahi weyn oo ka jirto dadka Soomaalida laana maxaa yeelay dad qof walba wuxuu u baahan yahay in uu kaga bogto travel agency-ga afkiisii hooyo cilado badan oo ka yimid dadka kale oo ajaanibta ah tigidh qalada loo gooyo dad badan oo Soomaaliya sababahaas ayaa keenay markaan mujtamaca iyo shacabka dhex galnay inay jirto baahi aad iyo aad u baahan oo xagga duulimaadyada iyo ku saabsan xajka iyo umrada marka la fiiriyo Furqaan Travel waa shirkad ballaaran kulamo hore oo aan arkana runtii waxay ahayd mid dadka aad ugu khidmaysay marka maadaama aad bilowday hawshan ilaa ay haatan ay socoto dadka Soomaaliyeed ee kula soo xiriiray ama ha u socdeen dhulka barakeysan ama adduunka kale ha u socdeen maxaa ay kala kulmeen maxaad xan ahaan aad la socotaa bismillaahir rahmaanir rahiim Cagmadhigo dadka Soomaaliyeed waa dad aad iyo aad kullay hadir ayaga ayaa la weydiinayaa Furqaan Travel service-ka uu qabatay hadii uu yahay xaj iyo umra iyo hadii uu yahay tigidhada adduunka oo dhan aad iyo aad bay dadka igu mahad celiyeen aad iyo aadna uga heleen service-yada sida xajka oo kale laana maxaa yeelay dadka Soomaalida marka ay timaado xajka waxa la dajin jiray meero xaramka u jirto aad iyo aad 40 daqiiqo 45 daqiiqo sida dadka waaweyn dadka waayeelka ah dadka xubnahooda aan dhameystirnayn intaba awood iyo umaysan lahayn fursad inay xaramka imaadaan oo ay ku cibaadaystaan shirkadda Furqaan Travel waxay ku soo kordhisay dadka Soomaalida ah inay u samayso package 5 star oo waliba labada xaranba hortooda ay ku tukanayaan Makka iyo Madiina qiimahana uu yahay qiimo aad iyo aad uga jaban marka loo fiiriyo Pakistaanta iyo dadka Hindida iyo dadka kale muslimiinta oo qaadaya package-kaas
وهاجاك marka la fiiriyo duulimaadyada tikidhada dadka loo gooyo shuruudo badan baa jira dadku ma akhriyaan mar aan ku wareystay hadda ka hor waxaad sheegtay in Furqaan Travel ay xubin ka tahay shirkadda weyn ee lagu magacaabo Atol oo ah mid iyada u xaqiijinaysa dadka duulimaadkooda si socod iyo soo socod xubinimadaasi maxay faa'iido leedahay Furqaan Travel maadaama aad u tahay gudoomiye wallahi aad ayay muhiim waxay u tahay aan ugu boorinayaa dadkayga Soomaalida ah maadaama aan service u hayo dhanka travelka ku saabsan qof walba Soomaaliya waxa aniga aan ku wanin lahaa in uu travel agency-ga uu tigidhka uu ka goosanayo inuu weydiiyo inay hay'adda Atal ay ku jiraan laana arintaas waxay xaqiijinaysaa qof walba oo tigidh iibsado dawladda micnaheedu waxay tahay 2 baan iyo bar ayaa loo shubayaa labadaas baan iyo barka waxay xaqiijinaysaa qof walba diyaaradii waqtigii uu ku soo noqon lahaa in uu on time ku soo noqdo haddii cilad imaado dhanka diyaaradda ku saabsan qofkii wuxuu u helayaa facility ah in diyaaradii ay geyso hotel in ma aragtay 2 bari ama 3 bari waxa ay ku qaato hotel ay ka bixiso haddii diyaaradii soo dhaqaaqi weyso diyaarad kale oo ayadii lamida service-ka lamida la saaro haddii ay qoliyaha diyaaradda diidaanna Atal certificate-ka anagu aan bixino ama travel agency-yada Atalka xubinta ka ay bixiyaan waxa ku yaala number 0207 numberkaas ayuu soo wacayaa waana civil aviation-ka xaruntooda weyn ay tahay magaalada London wuxuu siinayaa reference-ga meesha ku yaala wuxuu leeyahay halkaas ayaan joogaa maadaama ay diyaaradii imaan weysay maxaan sameeyaa markaas dawladda ayaa arintiisa la wareegayso dawladda ayaa hotel geynayso dawladda ayaana waxay ku soo celinaysaa meeshii uu ka soo duulay oo ahayd adduunka meel kasto ay tahay waxay kale oo dawladda weydiinaysaa haduusan rabin xataa inuu noqdo inay dawladda garanti uga dhigto lacagtiisa inay u soo celiso sida la socota hadda ka hor waxa dhacday magaalada Hargeysa in Ethiopian Airline ay joojisay duulimaadyadii ay ku tagi jirtay laana cilado ka jira airport-ka daraadeed Ethiopian Airline dadkii waxay u sheegtay kulli inay Addis Ababa ugu imaadaan dadkuna xaq uma lahayn laana qofka wuxuu xaq ugu leeyahay Ethiopian Airline tigidhkeeda markuu goosanay wuxuu ka goostay from London to Hargeysa not from London to Addis Ababa marka haddii Ethiopian Airline ayada ay cilado ama waxyaalo imaaday Hargeysa u imaan weysay waxay ahayd dadka intay Hargeysa ka soo qaado oo diyaaradaha kale ku soo daabasho inay keento Addis Ababa hotel ka bixiso maalinta labaadna ay soo saarto maysan dhicin laakiinse annaga dadkii aan u goynay dawladda Ingiriiska ayaa waxay ka soo qaaday magaalada Hargeysa Dubai ayay keentay 2 bari bay hotel dejisay kadibna waxay ku soo celisay magaalada London dadka Soomaaliyeed ee ku dhahanaya iminka waxay fahmayaan macnaha aad sheegtay qof walbaana wuxuu rabaa safarkiisu inuu aado safar uu ku maqsuuday maxay ka filan karaan adiga iyo shaqaalahaaga Furqaan Travel ee ku baahsan dacalada adduunka marka kuwa dadka Soomaaliyeed qof kasta oo Soomaaliya TV-ga daawanay waxaan u sheegaynaa tigidhka qofka marka uu goosanayo shuruudo badan ayuu leeyahay waxaan annaga haddaan Furqaan Travel nahay aniga iyo shaqaalahaygaba si fiican loogu training gareeyay in qofka tigidhka ay u goynayaan ay marka ugu horeyso u sheegaan waxa uu yahay iyo shuruudihiisa laana dadkeena Soomaaliyeed waxay u badan yihiin qofka markuu imaado wuxuu ku weydiinayaa tigidh raqiisa waxa jiro tigidh raqiisa haddaad iibsato aan laga celin karin waana changeable ma ah refundable ma ah lacagna lagu ma celinayo sidaa daraadeed qof kasta oo Soomaaliya waxa anagu aan aad iyo aad ugu dadaalnay inaan dhahno haddaad tigidh raqiisa doonayso tigidhkan waa tigidh raqiisa laakiinse lacagtiisa haddii ay maanta wax kugu dhacaan lagumana bedeli karo lagumana soo celin karo marka si aad u xaqiijisid in waxaadii ay safe noqdaan tigidh la bedeli karo at least doono kadibna waxaan u xaqiijinaa markuu qofka tigidhka naga qaato inaan siino Atal certificate oo ay ku qoran tahay Furqaan Travel haddii xataa Furqaan Travel ay joojiso service-ka ummadda ay u hayso dawladda ayaa la wareegtay ilaa qofkaas uu wadanka ku soo noqonayo aad iyo aad baad u mahadsan tahay Cabdiweli oo ah gudoomiyaha shirkadda Furqaan Travel oo si aad uga warbixiyo guud ahaanba waxqabadka iyo shuruudaha qofka looga baahan yahay si qofku si nabadgelyo ah ugu tago halkuu u socday si nabadgelyo ah ugu soo laabto waxa kale oo dhinacayga bidix fadhiya Khaliil Xasan Ciise waa nin aqoon-yahana oo dhalinyaro ah oo runtii aan oran karo waa maasha Allah ragga farakutiriska ah ee dhinaca diintana aad ugu wanaagsan wax badan u khidmeeya bulshada Soomaaliyeed iyo bulshada kale islaamka ah dhinaca kalena ah aqoon-yahan bulshada uga faa'iideeya aqoontiisa Furqaan Travel ayaan oran karaa waxa uu ka yahay xibin weyn marka waxaan asaga weydiiyay waayo-aragnimadiisa iyo aqoontiisa iyo Furqaan Travel iyo kaalinta wadamada bariga dhexe gaar ahaan magaalada Dubai Khaliil oo arinta ka jawaabaya waxa uu yiri بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بعد أولا وما سنت عكتا عبد ولي
khadiijo dhammaantiin marka hore waxaan u mahad celinaya ilaahay subxaana wa tacaala mar labaadkana universal t v iyo barnaamijkan sharafta le aad nagu soo barigtay furqaan travel siduu walaalkan cabdulla inoo sheegayba wixii oo dhan barnaamijka isaga inoo dhameeyey laakiin waxaan doonayay inaan ku daro waxaanu doonaynaa haddii alla idmo in aanu ogeysiino dadka soomaaliyeed oo dunida ku nool oo halkan usoo doonta ama dalxiis ama inay meeshan maraan ama inay ka dhigtaan waddo ay u maraan dalka markay u socdaan ama ay dalxiis u yimaadaan ama ay caafimaadkooda dadkoodii keenaan oo halkan kula kulmaan ama aysan aadi karinba soomaaliya qaybtooda aysan tegi karin oo halkan intay ugu yimaadaan dadkoodina keenaan ama iyagu faamilkooda intay soo kaxaystaan doonaya inay halkan keenaan inaysan travel furqaan travel agency aysan noqon faqad bas sharikad tigidhada kaliya goysa ee ay noqoto mid dadka u khidmaysa qofkii doonaya halkan inuu dalxiis ku yimaado qofkii doonaya inuu samaysto inuu isku xiro tigidh halkan ilaa adduunkao dhan dhinacyadiisa meeshay doonto ha ahaato qofkii doonaya xataa in uu meeshan soo dego oo degaan ahaan usoo dego inaanu ka saacidno oo aanu uga samayno halkan xafiis ka kaalmaynaya in aeroboortkii loogu tago tigidhkii marka loo soo bukingareeyo aeroboortka loogu tago lasoo qaado la dejiyo meel munaasib u ah qofkii loo qabto waxyaabihii uu waddanka uga baahnaa gudihiisa hadday aqoon ahaan lahayd hadduu doonaya inuu wax ka barto hadday caafimaad ahaan lahayd hadday dalxiis ahaan lahayd hadday ahaan lahayd meelaha loogu talagalay dalxiiska oo waddanka gudihiisa ah qawaaniinta waddanka ku noolaanshaha hadduu doonayo xataa inuu ku noolaado hadduu doonayo inuu business ka furto inaan faqad lagu xirin in tigid faqad loo gooyo laakiin la ballaariyo wax walba wixii loo qaban karo waxaa laga yaabaa qofku inuu lacag la baxo oo uu aeroboortka yimaado isagoon garanayn meeluu aado annagu waxaanu ka saacidanay inaan ugu tagno insha allahu tacaala oo aan soo kaxayno meel munaasaba dejinno isagoo wixiisa iyo danihiisa dhammaystay oo halkan ka laabto oo raalli ku ah marka la fiiriyo furqaan shirkado badan baan aragnay dadka iyada macaamilka la yeeshay waxay ka abaal sheegtaan waxyaabaha ay u sheegto inay dadku arkaan sida marka xajka iyo cimrada la aado dejinta hoteelada ku dhegan dhulka barakaysan si dadku aanay ugu dhibaatoon marka ay tegayaan si cibaadada usoo gutaan howlaha aad sheegtana waa ay jiraan dad badanina way ku daawanayaan khaliil qaar waxaa laga yaabaa inay ku bargaranayaan maxaad ummaddaas aad ilaah baa ballanqaadka iska leh laakiin maxaad u ballan qaadi lahayd marka la fiiriyo inta aad hadda sheegtay in kalaba horta ilaahay subxaana watacaala baa iska leh awoodda iyo wuxuu u qadaro annagu waxaanu sheegaynaa waxaanu doonayno jecelnahay inaanu qabanno laakiin xaqiiqdu waxay imaanaysaa marka qofka uu halkan imanayo in uu u baahan yahay uun dad uu ku kalsoon yahay oo aan doonayn inay jeebkiisa intay gacanta gashaan ay kala soo baxaan lacagta ugu jirta laakiin xataa ay tahay waxyaabo bilaash ah oo free aan ugu soo qadimayno oo ah inaanu istishaaro ka siino qofku meeshuu aadi lahaa wuxuu samayn lahaa meeshuu degi lahaa qaabku u aadi lahaa inaanu for free aanan lacag xataa ka qaadan aan weydiino qofka maxaad u baahan tahay istishaaro maxaa waddanka uga baahan tahay maxaa lagaaga baahan yahay adiga maxaa kula gudboon xaggee aad jeceshay inaad degtid aanu ka kaalmayno waxyaabaha qaybtood aanan xataa faqad aanan ku weydiin maxaad lacag haysaa iyo maxaad siinaysaa annaga waxaa laga yaabaa inuu aeroboortka kasoo dego midnight isagoo aan meella ku socon Soomaalidu badanaa inta badan waa dad iska safra waa dad dalkooda ka wada maqan Dubai waa meesha kaliya ay waddanka soo maraan waxaa laga yaabaa inuusan carabi garanayn waxaa laga yaabaa qaybtooda inay ka yimaadaan dalal aan ingiriiska laga hadlin waxaa laga yaabaa aeroboortka in diyaaradda kaga tagto wuxuu doonayaa qof la xiriira qof ugu taga meeshii qof soo qaada qof geeya meel uu ku nasto u habeeya inuu diyaaradda labaad u raaco diyaaradaha Soomaalida meesha ka baxo waxaa laga yaabaa qaybtood inuusan la kulmin ama uu bookinkii ka dib dhaco in loogu tago meeshii ama uu soo waco ama lambar la siiyo la yiraahdo xataa waxa tahay amaan haddii aad soo gashay Dubai inaad telefoonka garaacdid ay waqti iyo waqtiga doontid aad weydiisid waxa lagu qaban karo marka la fiiriyo Khaliil Cabdiwelina hore u sheegay marka la fiiriyo arrinta ku saabsan qofka ka imanaya London oo kale oo Soomaaliya ku socda tigidhkiisa ilaa Soomaaliya waa la soo jaraa connectionki waa loo sameeyaa London Dubai ilaa Muqdisho ama Hargeysa ama Garowe ama meelo badan oo geeska Afrika ka mid ah tirada dadku inkastoo la ekaataba waxaad hadda ka dhawaajisay qaybta dalxiiska oo kale dadka u socda waa geenaynaa tira kastoo dadku ay la eg yihiin ma la qaabili karaa mase tira cayiman ayaa jirta arrintaa ka war horta laba oran karo dadkoo dhan baa lasoo wada raraya oo la doonaya halkan in tourism loo sameeyo wax alla waxay qabanayaan awooddeedaan ku xisaabtamaynaa iyaga
soomaalidu dad badan maaha oo hal mar soo wada baxaya waa dad waqtiyo kala mucayan soo baxa shaqaala jira waqtiyo mucayan jira familiya jira waxa jira dad bisha ramadaan yimaada halkan oo doonaya inay masaajidka ku tukadaan oo doonaya inay meel dhow masaajidka degaan oo doonaya wax ka kaalmeeya meeshii ay ilmahooda geyn lahaayeen salaadii cibaadadii dad baa jira xataa doonaya inay intay meeshan yimaadaan doonaya ilmahooda inay quraan geeyaan dad baa doonaya halkan inay u yimaadaan qaybtood inay tagaan meelaha biyaha kulul oo lagu talagalay dadka doonaya inay caafimaadka ka helaan biyo kulul oo buurta ka soo baxaa jira oo dadka qaybtooda ay u soo aadaan meeshan oo ummadaha kale xataa ay yimaadaan laakiin waxa arkaysa Soomaalidu inay xataa ku yaryihiin because waxaysan haysan dadka intay soo kaxayaan geyn lahaa waxa jira dad waxay aadaan saxaraha oo gawaaridooda ka safaariga ka haysta iyadana insha Allah taala waxaan awood xaawilina inaan hadii Allah idmo aanu u tawfiir ugu sameeyno inaan u firino in ay helaan wixii ka hayn lahaa iyagoo habaysan iyagoo guruuba iyagoo family ah meeshay rabaan dalxiis haday noqoto haday saxaari noqoto haday safaari noqoto haday inay doonayaan inay gudbeen noqoto haday doonayaan inay halkan soo degaan oo ka laabtaan adigu bil iyaga iyo familkoodu inta insha Allah taala waxaan xawilaynaa hadii Allah idmo u order garin hadii Allah khaliil xasan ciise aad baad u mahadsantahay waxaan filayaa ma noqon doonto markii ugu dambeysay universal aad warbixin siisid ma sha Allah waqtiyo dambe jiri doona hadii Allah ka dhigo khadiija cismaan aadan waxay kamid tahay dadka macaamiisha joogtada la ah iyada iyo qoysaskeeda iyo waliba asxaabteeduba Furqaan Travel wax badan la safartay ama ha noqoto dhinaca dhulka barakaysan iyo sanooyin badan ama ha noqoto duulimaadyada caadiga ah ee dalkii hooyo lagu tago ama dacalada dunida marka khadiija cismaan aadan oo aan ku neenaysi karayo Chichos hadii aan khaldanayn arintaas ayaan waxaan wax ka weydiiyay qaabka iyo sida ay u aragtay ballanqaadka Furqaan Travel iyo markii ay ku safartay wixii ay la kulantay haday isbarbar dhigto khadiijo maxay arinta ka tiri bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah ilaahay meeshan isugu ay kulmiyay hadda asaas kale caaw waxaan ku suganahay magaalada Dubai waxaan mahad u celinayaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala kadibna Universal TV iyo barnaamijka ninka aadka u fududeeya ganacsiga عقد حاجي انت ما كان يراهد كدب هدا وحي ويديس فرقان ترافل وحان لا سفري دور غور هدان كسو بلابو from 2009 الى 2014 وما عاو ان كسوغنahay هوتيل كان ان جوجنو انت waxaan kula safray xaj iyo umra marka runta ka hadlo waxyaabaha ay ballan qaadaan waxay uga soo baxaan sidii ay noo sheegaan sababtoo aniga kala markaas ka soo qaado markii ugu horeysay aan xaj aado qofku aduusan xajki waxba ka aqoonin inkastoo uu yahay xajku wax in la sii bartaba la rabo wuxuu noo sameeyay qof kasta inuu siiyo warqad af Soomaali ku qoran qofkii English ku qoran English ugu qoran oo sii barto oo ma aragtay group ahaan calamo aan isku garano ila meeshu waqtiga about 6 million 3 million 4 million people isugu imaanay tirada ka batay aad iyo noogu fududeeyay waxaan leenahay Furqaan Travel jazaakumullahu khayr jazaa ilaahay ka ajar siiyo cimraan raacay sidoo kale inta meel loogu talagalay in la tago wuxuu nagu geeyay naguna soo celiyay bisalaama iyo wuxuu naga ballan qaaday diintuna hadda waxay batiraada almuslimuuna ala shuruudihim بعدما أيهين لبضاء رج هذا النعيضة فرقان ترافل من دبي وجيها وكيل من برمهم وجيها ولبوا دي أهل الدين سو حي أنكو جارين أنا إنسان سيري إني كتبيان وح أي دين تكقبته أحد ذا قفك بلنت وإنه سيريتهاي وقصوا بحدي كله وحيصل قرتين إن العقد هذا شو هو بجليسه سو ما عليه بدن أضدك قادا واجران أو خالده لكن الحمد لله أنو إنتان راعي إنتي تجد يجوين وحن يجوين تجد from لقصوا بلا برمهم to Kenya to Somalia back to يبدأ إيطالياني ما عدد ولا حساب إنتان راعي آد بان وفرح سنة هاي Somali ذا نوحن لي لها لعكتين وليبتا قف آد اسكوه بتان especially مكادي سن حج كي عمر ذا تجد هذا كلا waxba qofku waa laga yaabaa inuu meel kale ka goosto although aanan ku waaninaynin laakiin xajka iyo umrada oo ah beedkii ilaahay
oo la rabo inaadan hadlin oo la rabo inaad si niyad ah wixii usoo gudatid waa inaad tagtaa meel aad ku faraxsan tahay oo aad iyo aad u qurux badan oo kuu sahlaysa wax kastoo aad qabsan lahayd kuu fududaynaysa aniga waa maray xajkooda cumradooda waxaan leeyahay wiilkan especially chairmanka ka Khaliil oo hadda ka bacdi I hope inuu ka bilaabo Dubai inuu dadka khaliijiyiinta u fududeeyo waxaan leeyahay jazakumullahu khayr jazaa aad bay u mahadsan tahay Khadiijo Cusmaan Aadan ugu dambeystii Cabdiweli maadaama aad tahay gudoomiyihii Furqaan Travel dad badanna muuqaalkaaga markay arkaan ay markiiba leeyihiin waa ka Cabdiweli dad kula safray iyo kuwa aan kula safrinba maxaad ugu baaqi lahayd bismillaahir rahmaanir rahiim mar labaad cagta aad baa u mahadsan tahay waxaan caaw ugu faraxsanahay aad aan ugu faraxsanahay inay halkan iga daawanayaan dad badan oo i raacay xaji cumro dad badan aan u kaxeeyay holdayaal kala duwan oldo hadayta aan ku darin waxyaalaha aan qabanno kale waxa kamid ah dadka waxaan geynaa Morocco Turkiya dadka aroosanaya dadka honeymoon-ka rabo iyo meelo badan Tunisia oo adduun kamid ah oo holiday loo tagay sida Cyber marka Furqaan Travel hawsheedii aad ayay maaragtay u ballaarisay xagga ay u haysay dadka Soomaaliyeed iyo dad kale oo ajnabiga ah waxaan dadka ugu baaqi lahaa alaaba Soomaalidu waxay ku laalaabataa ilma adeer iyo saaxiib qof walba ugu qofka aad lacagtaada aad u dhiibanayso waa inuu yahay qof birito haddii ay wax kugu dhacaan aad waxaadii aad ka heli karto ma ahan inaad ilma adeer ahaan uga heli karto laakiin aad uga heli karto sharciga dhanka dawladda laana markaa ka goosato travel agency ka registration civil aviationka oo atal protection leh waxay kuu sahlaysaa xataa hadda isfahmi weysaan qofkan inaad telefonka certificate-ka intaad dirtid aad dawladda aad u sheegtid wixii dhibaatada ku soo qabsaday iyo package-kii lagugu talagalay iyo meeshii la rabay in lagu geeyo iyo service-kii lagu ballan qaaday inaadan helin bishii la soo dhaafay December cagta waxay Muqdisho iga soo wacday gabar Soomaaliyeed oo aan filayo inay caawa TV-ga iga daawan doonto magaceeda waxaa la dhahaa Miski Cali tigid bay iga goosatay Muqdisho maalinta ii iimaanaysa waxay igu tirinayo waxa ay soo celisaa 29 December ما يصدق كديسمبر عندنا مالين لو أبدأ يسون نقطة وحيقول تري نيو يقدر صدق كسجال عتنك يسوعلي مالنتي يقول رئيس وراق دي أنو برينتر جريان قبل يسي تيجي كمر كان سجال عتنك ينكده وانسكيل لو أنا تيجي كعصباسي قبل دي ويتكتي مقدشة يتكتي أتل سيرتيفيكيت كيلو ودتي مالنتي صدق كمر كيتكتي وحلي سوري هذيك الدولمات كذا شليته سجال عتنك أنا ما أنت إماد مقدشة ما عين gabadhii anigoo Belgium maraay waliba ma joogin Holland ayaa teleefankayga mobilka laga soo wacay inuu ciladaas jirto dhibtaas jirto gabadhii wiilkii waxay soo wacay qabay waxaan ku dhahay wax yar ii kaadin meel baan istaagay laptopkayga aan furtay waxaan arkay qaladkii meeshii ka jiray wiilkii baan ku soo celiyay waxaan ku dhahay niyow aad iyo aad baad ma aragtay u maasan tahay qaladkan ma sameyn miski aniga sameeyay laana maalintii ugu horeysay ay timid waxay igu tiri soddonka ii kaxe maalintii laadna 29 marka maadaama aanan u sheegin aniga xaaskaada soo celinay isla maalintiiba tigid baan u jaray waxaan ka soo qaaday Muqdisho waxaan soo saaray Juba Airline waxaan keenay Dubai-na waxaan ka soo saaray Tayraan al-Khaliij ama Gulf Airlines sida loo yaqaano waxa ay u koos garaysay aniga Cabdulle ahaan ama Furqaan Travel Agency ku koos garaysay 585 pound waxaan u maleynayaa hadduu qof kale oo maaragtay aan dawladda ka register garaysan oo salahayn wuxuu dhihi lahaa sorry aniga tigidka waa ku siiyay adaa qaldamay diyaaradda ay ka soo tagtay adi iska bixi waxaas oo dhan waxaan u sameeynaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala aan ka cabsanayno iyo wax la dhaho customer satisfaction inuu customer-ka asagoo habi yimaado gabadhii wadaadkeeda waa xafiiska igu yimid iyo ayadiiba aad bay igu mahad celiyeen waxay dhaheen maanan moodayno qof Soomaaliya inuu saan sameyn karo marka waxaan ka codsanayaa travel agency-yada kale ay daawanayaan inay dadkooda Soomaaliyeed sida Ilaahay ugu ogyahay u khidmeeyaan oo ay service-ka u fududeeyaan si maadaama dadka Soomaaliyeed oo meel kasta adduunka ku dhiban ay meel u banaanaato insha Allah u fiican wahagaag aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay gudoomiyaha sharikadda Furqaan Travel ee ku baahsan dacalada dunida fadhigeeda weynna uu yahay magaalada Birmingham iyo fikrikii wanaagsanaa iyo faahfaahintii uu naga siiyay guud ahaanba Furqaan Travel waxaan kaloo u mahad celinayaa Khaliil Xasan Ciise oo ah wakiilka dhinaca bariga dhexe oo asaguna faahfaahiyay guud ahaanba khidmeyntu inaanay ku koobnayn oo kaliya ticket in la gooyay hawlo badan dadka loo qabanayo iyo ugu dambeystii Khadiija Cusmaan Aadan Chijos oo iyaduna kamid ah dadka wax badan la sabray Furqaan Travel kana warbixiyay waxyaabaha ay ku aragtay bulshada kalena u soo bandhigtay inay Furqaan la soo xiriiraan
filimka quruxda badan waxaa qaaday filim qaade saciid waxaa soo saaray barnaamijka saalim saciid saalim anigoo ah cagta xaaji intaan u yarahay una weynahay waa daawadayaasha meel kasta aad joogtaan isma aanan dhaafine wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Faith is belief in Allah and the messengers, the angels and the final day and the holy scriptures. To believe in destiny that good and bad both come from Him, and the resurrection. There is no God but Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Allah is the creator of heaven and of earth. Nothing may compare with Him. He is the one alone. The prophets, best of humankind, to all nations and all tribes. Last of all, Muhammad, mercy to the world.